هاي 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 يا معان هاي 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 يا معان هاي هاي. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhowaada 10 xigmadood. Waxaa idiin soo diyaariyey Dr. Ibraahim Cali. Waxaa idiin soo jeedi doona anigoo ah Maxamed Xasan. Xigmadda koowaad waxay leedahay in la ooyaa inaysan fiicneyn. Waxaad ogaanaysaa marka ilintaada ay gaarto faruuryahaaga, kadibna aad aragto in ilinta ay dhanaan tahay oo aysan macaaneyn. Xigmadda labaad waxay leedahay oohinta iyo murugada aad ku jirto in aad ka bixi doonto waxaa kuu caddaynaya in habeenka mugdigiisa uusan waarayn oo ay qorraxda soo bixi doonto, misna iftiinka iyo farxaddu ay soo laabanayaan. Xigmadda saddexaad waxay leedahay dunidan cadaalad inaysan ka jirin. Waxaan arkay marka aan waayay rag badan oo ooynaya, balse ay iga hor muuqdaan dumar badan oo ilmeynaya. Xigmadda afraad waxay leedahay nolosha waa sida basasha oo kale, si aad sanado badan u cunayso, maalinta ay indhahaaga gasho ayay kaa oysiinaysaa. Indhahan waxaa kaliya ee na siiyey waa Allah. Haddiiba ay dhacaysa inaan oyno, ma ahan qof inaan ugu oyno, waa in Alle aan ugu oyno indhaha oo na siiyey. Xigmadda lixaad waxay leedahay in dadku aysan dan kaa lahayn dhibaatada ku haysata. Waxaa kuu caddaynaya marka aad qososho, dad badan oo kula qosla ayaad arkaysaa, balse marka aad ooynaysid keligaa oo keliya ayaad ooynaya. Xigmadda toddobaad waxay leedahay marka adigoo sheeko akhrinaya ama daawanaya aad oyso, ma ahan waxaad ka oysay sheekada ama dhacdada filimka, waa damiirka naftaada ku dhex jira. Xigmadda siddeedaad waxay leedahay haddiiba aad ooynaysid, isku day marka roobku socdo in aad bannaanka u baxdo oo oysid, sababtoo ah cidna ma kala garan karta ilinta indhahaaga ka socota inay ilin tahay iyo inay roob tahay. Xigmadda sagaalaad waxay leedahay shalay waan faraxsanaa, maanta waa dhoola caddaynayaa, berri waa qosli doonaa, sababtoo ah nolosha markii horeba iska gaabneed, ma rabo inaan murug iyo oohin ku qaato. Xigmadda tobanaad ee ugu dambaysa waxay leedahay marka cunug noo dhasho oo ooyo dadku way qoslaan, balse marka nafta naga baxayso, xataa haddii aan qosolno dadku way ooyaan.